هذا الكلام ما يصير مركي هاتفيجي مر هدارهم قاطي سنجاء الحبيبي هي سيد دولار همرن ما يمان إما دافع له قوتية هو سكان كذا يوم هل كان كوجها جاتشو هل حاليا الأوجاد هكمر إن حريرها هوس يكره هؤلاء الهوس marka hore halkan waxaan doonayaa in aan ku qabto barnaamij leeyahay badbaado qaran oo barnaamij aad u ballaaran sax barnaamijkayga waxaan ku bilaabanayaa laba tixood oo gaagaaban oo midna gogoos tahado abwaanin hore ay leedahay soo yarta dacaamadee midna iminka marxaladan kicisay ay ka hadlayso anigu leeyahay tixdan anigu leeyahay hawsar baan leeyahay marka hore waxay ka bilaabantaa 30 sanaan xagoognaa hablo weyn sidaan ahay indhaha hoos u rogay heelu ragjo wali aan hadal oo dhan markii aan hamiyay ee halaanbeeyay taladii hurda sirxan waayay waxa haatuf igu yiri wixii aad higsanaysiin halgankii badbaaxay ee hangayow hanguu dhalay هل أمضي تبنتها هذا العدد كلا هذه هوشة هذا العدد كلا هذا هوشة جودتها ما تكوجها بول هينو رجلي يا هم على سارو يا أما أرض حول النوع أما هوشة جود هذا الكلام ما يصير مركي هاتفيجي مر هدارهم قاطي سنجاء الحبيبي هي سيد دولار همرن ما يمان إما دافع له قوتية هو سكان كذا يوم هل كان كوجها جاتشو هل حاليا الأوجاد هكمر إن حريرها هوس يكره هؤلاء الهوس يكره هؤلاء هابسامي وليان هي بلدا أن كوغرو حلقي ودنها جو هي بكوضة سيد هكها جنب بحرو حقي بي هالليين وهم ذو كتورين شعب كي بي هبوشين وددي هبولدي هليكي كل شيء هو أنت يقيم شيء هنتي دو دقاتين ميد يلا أبوانين هوري لهي شيب تيدان قال قبل مركان شغل في أغنية مر هدسي شمبراي يعني شو بيسمع غان شركة عايز سلام يوم ولي الوشي أفر قرنين شيلي أو ماذا حقيقة كعادة عليه قليل شبس عمري أو سيدي قاسة فضوض هذا قصاره ولا سود داشدي يكون سوري نكوا حلويديا ونكها أفر تانا الله والحرستي أبوان هوري ayaa yiri raggu siman sagaalka iyo magta iyo suurad gudnimo ee sakal adag saraayaha markuu saacac ka hadlayo mista kuma sifoobaan aqoon soofa iyo liid sokanina u bartiya xaraf yaqaan saami karagiye nin siyaasad dheer iyo badwo kala soo arroon marka hore waxaan idin sheegayaa waxaan ka baxay jaamacad waayo badan leeyahay لو يا فتى السنة أنا كنت فيه وحال برتها 12 مليون وقف سيدا لو كان اللي يسوق شيء ديو الحرادة دي حلوتها والله بإيو يا سيدا لو كان يسارو مسكح لي مورال كأنت لو بيسوي له دي شيء دري صح الله وسمعيه لبلا قيمة بالقبضة ولو كان عدى رجع بدك كيس وخساريو وهو حكاها يا أبا أيريه كان عدى صارت الوصولية marka waxaan doonayaa barnaamijkan ku saaban yahay waa wuxuu doonayaa shacbiga wuxuu diidayo qura hal qodob doolar ninka la yiraahdo xarigiisa indhuweyd saxaafaddu haystay siyaabo badan oo kala jajada iyadoo looga hadlayo horta markii hore abdow ila adeer nin alla kooda ayaa lagu yiri ninkaad walaal ahaydeen reerkii kaga tibi dhimay kasuu ila ninkii dhimay intuu waxaad igu hadasay wax soo galan ma ahayn igaday hada waa dhimay iyo hebel baa kiimay oo ku halkan nimankii baa soo kiciyay nimankii warkii ay u sheegeen ka rumaysan waayay mid baa yiri warinkan qalcino wariyahay ninkii hebel dhimay wankii weynaa calanka lahaa ee 3 jirka ahaa iyo 6dii madhalayska ahayd ee nooca seeda dhaxay yaa qoriqaadkiisii noqday guriga halkaa meesha ka xigta
xabaashi waa ta ka muuqata ee casira oo ay taa tahay oo reer miyigii hore dee ninkaasi dhimay ninkii aan reerka dhan kaga yimi yaad leedahay waa dhintay war wax imaraya maaha buuli ilaa aan gurigii tago oo ninkii ka waayo oo ariga aad sheegaysana kuwaana miyaa la raaciyey oo intii ariga aan ka waayo ariga aad sheegaysa hawlka ana arigii ka waayo xabaashina guriga agtiisa iga muuqato jinaasadii iga soo urto ninkii hebel aad reerka dhan kaga timi ayaa dhintay iima aha buuli marka waxaan uga socdaa horta marka hore doolaar ninka la yidhaaho ilaa 82 baan qiimay oo dhowr iyo 40 sanadood maanta ah doolaar baa qaran dumis ah oo Somaliland intuu dumiyo xamar iyo farmaajo maxamed siyaad bare 12 jeer ka xun ku socda halka la koodkan horta markii hore ka taagnay taas waa yaab waxaa yaab labada nuux baa qabtay nuux ayaa qabtado taariikhdu haddaan been laga sheegin dee been ma sheegtee xorriyaddan iyo nabadgelyadan iyo xukuumaddan aad arkaysaan dadweynuhu ee aad haysataan iskaba imana futa jiir iyo furriyo qori baa kala soo baxay raggii halkaa kala soo baxay baa doolaar hadduunan wan ahayn tuubu ahaa markuu hoos usoo dhaco tiri uu ahaa meel ka sokayso u ahaa ma jiro laakiin anigu minjii baan ahaa marka horta aad waxaanan u garanaynin doolaar halkaasi iga taagan tahay iyo hebel baa qabtay ilaa iyo 80kii ilaa 19 nuux wuxuu ahaana anigu sheegi maayo taariikhda sheegaysa markaa ninkaasina qarannimadii qayrkii reer Somaliland buu duminaya kaasina waa qabtay marka hore waa war loo noqon baan leeyahay waxaa halkaa aan uga dhaafaya marka hore shacabka reer Somaliland waa la hadlaya waxoogaa odhaha baan halkan ka odhanaya gaar ahaan reer Burco gaar ahaan habar jaro inta aan xagga xukuumadda u gudbin horta intaasaa la hadlaya marka hore shacabka waxaan leeyahay xorriyadda nabadgelyada xukunka qaranka xoolaha qaranka diinta dhaqanka suuban dhulka qaranka astaanta qaranka oo waxyaalihii la soo maray ka warramayso haga ah sideedaasi waa laba taabtaan shacabka Somaliland muuse bixi male iyo sayrici golaha guurtida iyo golaha wakiiladu male wasiiradu male kulmiye male ucid male wadani male qolo male mana yeelan karto qof kasta oo ibn aadan ah gaal iyo muslim cadaan iyo madow lab iyo dhadi oo miyir qaba sideeda uu ilaashada gumis iyo gambeele iyo gabooye afrikaanka deriskeena ha agagaarkaa joogay saddexdaas ugu daran diintooda iyo dhaqankooda way ilaashadaan xornimo la'aan waa nabadgelyo la'aanna waa nolol la'aan waxoo dhamay labadaasi ku fadhiyaan marka hore waxaan arkayay dolar waa la xidhay haddii la xidhay waa nin waa dambiilo qaranna waa ku eedeysan yahay doolaar xadhigiisu dariiq loo raaco buu leeyahay khalad laguma saxo markaad khalad ba sida aan anigu aaminsanahay aaminsantihiin dariiq loo raacaa buu leeyahay dariiqa loo raacayo waxaa weeye marka hore waa lagu waayay qarandumiskii iyo hadal buu yiri waxbaan maqmaqlaya waxaasoo dhan soo dhaaf taa waxaan ka aaminsanahay oo maanta wixii aan ilaawaba nin xumi soo ima ogeysiiyey soo urlibax laguma ridin aamin iyo daacad ninkii aan in adeer lahaa soo uubta qodi maayo haloo la yidhaha aamin dariya amankaag yaa ladka yagan iyo shacabkaba haysta maamul xumaana dhasha
waxaan xusuusanay oo maxkamadda imka markii codkeedu soo baxay aan xusuustay gaani iyo dharkaan geeyo iyo maxamed cabdilaahi iyo 82 xaaladda halkaa ka dhacday baan xusuustay waxaad moodaa xaqiiq ahaan markaan dhageystay maxkamaddaasi waxa ay ku eedaysay ninkaa wax nin mas-uul ah oo mas-uul qaran ah oo maxkamad joogaa uu hor keeno dadka maaha wax la maqli karana maaha waxaan leeyahay raggii dembigaa ku haysto ama adaa gelaya ama isaga dembiga ku caddaanaya waa qodob lagana hadhi maayo taa nin weliba ku talagal dolaal waxaan leeyahay haddii aad jeelkaad ku jirto jeelka raggaa loo sameeye ka soo baxdo ama dembiilo qaran baa tahay oo aqoontiisa iyo iimaankiisa wax noqdeen oo annagaa ku xukumaynaa ilaa ciddaad waxaan lehay aad ka gashay muuse bixima leh anaa leh 8 kuu sheegay anaa leh dee ninka taab waa laba taabtaa ninka taabtaa waxba liiliya hadhi maaha ama haddaad halkaa ka soo baxdo ama dembiila tahay ama doqon dhalay baa tahay kan mooday limitii ama waa inuu kugu caddaada kiiskaasi ama weynaado ku soo eedeeyay galaan taa waxaan leeyahay intaa doolaal iyo tii nuux baan ku dhaafayaa waxa aan leeyahay habar jeclo tog dheer horta dagaalku marka hore waa 16 qaybood 16 qaybood qoriga ayaa u liita 15 kaleba markaad nabadgelyo ku weydaabaa qoriga la qaataa qoriga layna baray qoriga ayaa layna baray 15 kale si inaan ugu dagaalano laynama barin qabyaaladda qoriga dhagaxa la tuuro burki iyo toorida tog dheerow isma dhaantaane waa inta rag idinka reebtay inta halkaa dhiga waxaan leeyahay oo labaad war nabadgelyada iyo xorriyadda haddii muuse biixi leeyahay ama sacad muuse leeyahay dee u daaya habar jeclo waxaad idinku leedihiin hadday tahayna qori ma taagnee dariiq bay leedahay dariiqeeda mara oo waxaan 7 cashay gaadhin ama waa inuu dembiilo qaran noqdaa ninkani ama waa in lagu bedelaa kuwii eedeeyey iyo cilmigaa lagu dagaalamaa ciidamada aad hubka u qaadanaysaan muuse biixi male xorriyadda male isagu nabadgelyada eg markaa waxaan leeyahay rag waxay dana ka hayso hawshaa oo weliba ciidamada iyo madaxda qaranka koow ay ka yihiin iyo madaxda reeruhuba xisaab baa taal waxaan la hadlayaa iminka xukuumadda marka hore xukuumaddu waa raggii la doortay iyo raggii ay direen madaxweyne ku-xigeen waa la doortay 2 golena waa la doortay qaranka Somaliland magac iyo mafac wuxuu lahaa iyo dariiqu qaadi lahaa intaas ayaa laga rabaa maamul xumada madaxda sare ka timaada ama xusbiyaha noqoto ama xukuumadda noqoto waa AIDS waa cancer waa coronavirus waa xanuun dilaaya oo sida loo daweeyaa ay adag tahay taasi waa intii laga dagaalamay waa inta la doonayo in laga xoroobo waa inta la doonayo dadka maskaxda iyo moraalka ay kaga jirto in laga safeeyo maanta xusbi beeleed iyo xukun beeleed looma baahna dembigaa dolaal loo haystaa mid sida qoraxda u muuqda oo la qaato wixii la doono hadhow laga yeelay ya in uu noqdo oo ummadda ku qanacdo iyo inuu si degdeg wax uga qabto oo weliba waxa uu ka qabanayaa wax lagu qanco ay noqotaa oo cidii waxa soo eedaysay ee la timi ay iyagu wajib ku yahaan waxa qarankii Soomaaliyeed ku dumay maalintuu noqday boqortooyo Mareexaan maxamed Siyaad Barre ka yahay kala doonaya in laga xuroobo waa taa abdow abwaan hore wuxuu yiri rag waxaan ku maamulay aqaan
ama ku maamuusi mase inaanu nahagay tulino meerta noo tahay inta malabka kale loo shushubo la iiga miileeyo oo aan fartaa lee muudinayno meeshana aan joogo 3 magac ilaahay xaajada layma maraysiiyo masalaa ninkaan dhigay midig ma saarayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho dolaal wala iska xiray darajadina waa laga qaaday sida dumarka loo sii daayay wax la aqbali karo maaha haddii isagu aqbalo xitaa anaga aqbalay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.